عن أينا كل مادين وأنا نسوس النقدونا الدي أو إلهي يرادو لنا عكلمات وحالك كلنا حبنا آدمي مو باش عالم أينا كتيرسن وقاركود وهذا الكودي والله سعتان إنجليز كي مريكان كا أيها ودي يوروبيان يونيون كا ميدو يوروب يو إن كا أيها كوسو بيري مركا إسواف الجنت وهذا لا داسنه وحن ديرة صارني موقف أنك نوجا آدن أيها إسكور سني marka waxaan rajaynaynaa in dalku marxalad kala guur uu ku jira in ay rejiimka waqtigiisa dhamaaday xasan sheekh uu ogolaado in wada hadal laga gaaro arrimaha taagan oo ay kow ka tahay doorashooyinka oo la joojiyo doorashooyinka been abuurka ay ugu horeysay mid hadda bari la leeyahay baydhabo ka dhacaysa oo la ogyahay natiijadeeda iyo meesha ku dhamaanaysa la sii ogyahay doorasho lama yiraahdo من نتيجة هذا هرلو سي أوجيه دورشة وحالي هذا من النتيجة هذا لو ترتمى يعيد هي ستا النتيجة إيسان أوجين هي دورشة اللي هذا مركب واحد أقوم يمسن أو كلا أن تركيا كلا هذا النوعية هذا سوى هذا السياسة الله باللعبة وإندي إسكاليشن وحلي هذا تاج وحي سومالة هذا حق أمني جاه يعيد مدى جافوريجا هي حافظها إيدات كسياسيين تبع سنة يقولوا هذا فتشاية in la joojiyo si loo helo qaab wada hadal lagu gali karo lana abuuro security protocols hanaan security-ga loo aamini karo hay'adaha amniga hadda lama aamini karo hay'ado qof aan sharci ahayn u shaqeynaya noqdeen oo dadka u dilaya oo hubkii loogu talagalay cadawga ama argixisada dad rayada oo siyaasiyiin oo odayaal dhaqan u isticmaalaya noqdeen mar kale waxaan ku celinaynaa dhalinyarada ciidamada iyo saraakiisha ah kullu taqaarka badano in kamida waa la soo bixi doona xashaq markuu ka dhamaysto asaa iska soo tuuri doono banaanka imaan doona sida dhici jirtayba inaad sharciga iyo dawladnimada iyo dastuurka iyo qofka in amraya aad kala saartaan oo aad ka fikirtaan dhalinyarada tihiin wali waa yaryartihiin waliba dawladnimada waa ku cusub tihiino idinkoona system dawli ah oo hierarchy kala sareyn iyo tababar dawladeed qabina xilal in ka waaweyn iyo garaadal in diibay inaad arintaas ku kadsoomin oo waayaha inay dhiman aan wax ka faa'iidaan in rajayna waa maasantii intaas oo ahaa inaan inkaga warano kulankeena maanta waa maasantii shukran